Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta gudoomiyay shirka toddobaadlaha ee looga hadlo dardargelinta qorshaha deyn cafinta Soomaaliya. Shirka oo lagu qabtay xarunta Wasaaradda Maaliyadda ayaa waxaa ka qayb galay Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Maaliyadda, Gudoomiyaha Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka, Agaasimaha Guud iyo Agaasimo waaxyada kala duwan ee Wasaaradda Maaliyadda ka oo diiradda lagu saaray ka guulgaaridda barnaamijka geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa Ra'iisul Wasaaraha xog laga siiyay heerarkii kala duwan ee uu soo maray meesha uu hadda marayo qorshaha deyn cafinta, waxaana aad loogu falaqeeyay guulaha laga gaaray sida ugu habboon ee dowladda federaalka Soomaaliya uga soo bixi karto shuruudaha lagu xiray wareegga afraad ee qorshaha deyn cafinta Soomaaliya ee SMB4. heshiisyada ay wada galeen dowladda Soomaaliya, hay'adaha maaliyadda adduunka iyo shuruucda laga maarmaanka u ah deyn cafinta ee la doonayo in baarlamaanku ay meel mariyaan. Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Maaliyadda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahim oo warbaahinta la hadlay markii uu soo dhamaaday shirka ayaa sharaxaad dheeraad ka bixiyay waxyaabihii looga hadlay shirka maanta. Shirkani waa shir toddobaadle ah oo maalmo qabsoomi jiray, waana shir looga hadlo arrimaha deyn cafiska Soomaaliya, geedi socodka deyn cafiska Soomaaliya SMB program. waxaana maanta nagala soo qayb galay noona shir gudoominayay Ra'iisul Wasaaraha dowladda. runtiina ahmiyad weyn ay dalka u leedahay in deynta faraha badan ee Soomaaliya lagu leeyahay laga cafiyo. meel wanaagsan ayayna maraysaa. waxaa jira heshiis cusub oo la soo galay oo la rabo in deynta Soomaaliya looga cafiyo ah. marka runtii meel wanaagsan buu marayaa. shuruudaha badankood qaarna waa la gaaray, qaarna waa la gaari doonaa. waxaan rajayn doonaa sanadka dhamaadkiisa in go'aan laga gaari doono deyn cafinta Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhammaan buuxisay shuruudihii ku xirnaa SMB1, SMB2 iyo SMB3, waxaana dhammaan hay'adaha maaliyadda dunida iyo wadamada deymaha kule Soomaaliya ayaa maaneyn sida dowladda Federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay ka miro dhalinta qorshaha deyn cafinta dalka oo heer wanaagsan soo gaaray. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.